الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا داووينكا ليراهو anti viral drugska أما داووينكا لو استعماله حنودا أي كينان أما لا حريرا عابقيدا وسببايو حنونكا ليراهو فيروسكا kala duwan ee jirka bini'aadamka ku dhaca sideedaba marka laga hadlayo anti viral drugska ama xanuunada inta badan virusku sababa daawooyinkooga waxa muhiim ah in si fiican u fahanno waxa wax sababaya oo ah viruska in laba qaybood loo qaybiyo marka loo eego proteinka jirka bini'aadamka ama proteinka virusku uu ku korayo marka loo eego virusyada qaar waxa la yiraahdaa waa RNA virus waxaan tusaale u soo qaadanaa HIV/AIDS-ka HIV-1-ka iyo HIV-2-ga maadaama ay yihiin RNA virus marka wuxuu u baahan yahay si uu koro proteinka la yiraahdo RNA qaarna waxa la yiraahdaa DNA viruska waxaan tusaale u soo qaadanaa hepatitis A-ga D-da E-da C-da iyo kuwa kale la halbaan xanuunka la yiraahdo Jaundice-ka ama beersubagowga xanuunka la yiraahdo iyagana waxa la yiraahdaa waxay u baahan yihiin hidde-sidaha la yiraahdo DNA-da virusku wuxuu ka mid yahay noolayaasha ugu yaryar ee xanuunada sababi kara waxaanu inta badan leeyahay virus markaynu ka hadlayno waxa uu u baahan yahay inuu noolo kale ku dul noolaado hadduu RNA yahay wuxuu noolihii uga baahan yahay bini'aadamka DNA hadduu DNA yahayna noolihii bini'aadamka wuxuu uga baahan yahay RNA marka keligiis ma istaagi karo ama keligii ma tarmi karo mar saasaynu u qaybinaa mar kale waxa viruska loo qaybiyaa tiyo loo eegayo size-ka uu leeyahay oo tusaale ahaan haddii size-kiisu uu yaryar yahay oo ilaa 20 nanometer uu yahay waxa la yiraahdaa parvovirus hadduu waaweyn yahay ku waaweyn uu yahay 360 ilaa 400 nanometer uu yahayna waa large virus baa la yiraahdaa ku waaweyn waxaan tusaale u soo qaadanaynaa bahalka la yiraahdo furuqa ama viruska la yiraahdo furuqa smallpox-ka iyo kan maanta xanuunka taagan dunida la yiraahdo coronavirus-ka ama COVID-19-ka oo isaguna 400 nanometer marka marna culayska loo eegaya marna waxa loo eegaya hidde-siduhu ma RNA ba mise waa DNA virus baa loo eegaya guud ahaan xanuunada virusku dhaliyaan oo dhan kuma soo koobi karno daawooyinkeenan inta ugu muhiimsan marka soo qaadanaynaa kuwa ugu muhiimsan waxa kamid ah nooca la yiraahdo CMV-ga ama cytomegaloviruska oo ah viruskan sababaya xanuunka la yiraahdo hablabasta iyo ka labaad oo la yiraahdo herpes simplex virus oo loo qaybiyay HSV1 iyo HSV2 oo ah nooca inta badan ku dhaca afka qofka bini'aadamka iyo xubnaha taranka dadkeenu inta badan waxa uu yaqaanaan caaro oo waxa jira dad badan oo intay seexdaan soo toosa iyagoo dabinta ama afku uu leeyahay finan yar oo soo xanuun kulul markaas la yiraahdo qofka caara ku dhacday baa la yiraahdaa herpes simplex viruska ka saddexaadna waa taqaanaa waa HIV/AIDS-ka waa virusyada inta badan lagu dhawaaqay 1981kii ka afraadna waxa la yiraahdaa influenza ama hargab inta badan waxa la isku khaldaa durayga iyo hargabka ama common cold iyo influenza common cold incubation period-kiisu waxa weeyaan 5 cisho ilaa 7 cisho halka influenza-ha incubation period-kiisu yahay ilaa 30 cisho marka hargabkaad moodo inuu ka culus yahay ama uu ka weyn yahay haddaynu xanuunka koobaad soo qaadano cytomegaloviruska waxaynu nidhi inta badan xanuunada virusku ay dhaliyaan dhammaantood nooc doona xanuunkaasi ahaado ama meesha doonaha ku dhaco waxay eegtaan dadka difaaca jirkoogu hooseeyo ayay inta badan aad ugu badan yihiin marka xanuunada virusku dhaliyo dhan waxa la yiraahdaa waa opportunistic infection oo dadka difaaca jirkoogu hooseeyo eegtaan sida dumarka uurka leh carruurta yaryar dadka macaanka qaba iyo dadka kale xanuunada kale ee difaaca jirka daciifiya qaba markaas ay cytomegaloviruska kale direct contact wala isku gudbin karaa hooyadu ilmaha yar oo u gudbin kartaa placenta ama mandheerta u gudbin kartaa haddii qof qab xanuunkan qof kale dhigiisa lagu shubana waa lagu gudbin karaa xanuunka kale waxa la yiraahdaa labaad herpes simplex virus ama HSV1 waxaynu ku sheegnay inuu ku badan yahay xubnaha taranka ama genitaliska waa markuu yahay HSV2 markuu yahay laakiin HSV1 markuu yahay ama herpes simplex virus 1 markuu yahay inta badan dabintaad moodaa inuu aad ugu badan yahay ama afka ayaad moodaa inuu aad ugu badan yahay virusku ama ha weynaado ama ha yaraado 5 step buu maraa marka uu tarmayo stepka koowaad wuxuu samaynayaa selkii ama unugii qofka bini'aadamka buu ku dhigay attachment baa la yiraahdaa stepka labaad wuxuu doonayaa inuu isticmaalo hidde-sidihii qofkii bini'aadamka hadduu RNA ahaana DNA buu uga baahan yahay hadduu DNA ahaana RNA buu uga baahan yahay stepka saddexaad wuxuu samaynayaa uu tarmaya ama replication buu samaynaya unuga dhexdiisa ku tarmaya ama selka gudihiisa ku tarmaya stepka afraad wuxuu samaynayaa jirkii oo dhan buu isku ballaarinaya dissemination baa la yiraahdaa stepka shanaad wuxuu samaynayaa calaamadihii buu samaynaya calaamadihii xanuunka uu lahaa baa soo ifbaxay
hadday noqoto difaac macnihii miisaankii hoos u dhacay hadday noqoto tusaalaan kale xumad hadday noqoto dhibaato kale oo xanuunkan uu lahaan lahaa markaasay calaamad soo sheegaan marka shanta step bay maraan dhammaan daawooyinka aynu dhigan doono mechanism of actionkoogu badankoogu waxay u badan yihiin waxay xidhaan stepka saddexaad oo ah inay xidhayaan replicationka viruska uu sababayo marka waxay diidayaan guud ahaan salkii inuu ku dhex tarmo in viruska markaa uu taran ku sameeyo unbay diidayaan intooda badan waxay u badan yihiin daawooyinkani virostatic way yar yihiin daawooyinka dilaya viruska laakiin badankoodu koritaanka viruska unbay hor joogsadaan su'aalo badan baa la isweydiiyayo la yidhaahaa daawooyinka viruska waxa ma taraan sababta aanay waxba u tarayn waxa weeyaan qofku xanuunkiisii waxa la dareemayaa mar viruskii uu dhammaystayba tarankii ama replicationkii marka daawada la siiyaa replicationkii hore tagay waxba kama qabanayso ama isbadintii hore viruska waxba kama qabanayso laakiin waxay wax ka taraysaa replicationka cusub ee soo socda unbay xidhaysaa laakiin intii hore markaa qofkii way dhaafeen waana sababta daawooyinkan waxtarkoogu markaa uu aad ugu yar yahay intooda badanna mechanism of actionkoogu saynu sheegnaa waxay blogareynayaan replicationka iyagoo ka xidhaya ama DNA-dii ama RNA-dii uu taran ku sameeyaa daawooyinka antiviral drugsku pregnancy category way ku kala duwan yihiin laakiin badankoodu waa waa liver soluble drugs waa daawooyin runtii difaaca jirka bini'aadamka kor u qaada waa daawooyin yareeya taranka viruska waa daawooyin prescription lagu qaato oon la iska qaadan waa daawooyin side effectyo badan leh waana highly liver soluble drugs inta badan xanuunkan wuxuu aad ugu badan yahay ama xanada virusyadu dhaliyaan oo dhan sida ka muuqata slide-kan dadka la yiraahdo immunocompromiserka ama dadka difaaca jirkooda hooseeyo waa kuwa ugu badan ee xanuunkan u nugul marka laga hadlayo daawooyinkan dadka ugu badan ee u baahan iyagay noqonayaan